qofku haddii uu tukanayo salaad iyadoo meesha ay taalla cunto uu jecel yahay ama xaaja ay hayso uu rabo inuu guto inaanu bilaabin salaadii inuu cuntadiisa iska cuno ama xaajadiisa iska soo guto iska soo weysaysto waxa laga yaabaa iyadoo qofku guriga uu fadhiyo salaadii maqrib in cunto fiican gurigii loo soo dhigo isagoo aad u gaajoonaya oo dabeetana masaajidka uu yimaado wax allaali wuxuu tukadayba aanu garanay cuntadii uu xisaabinaya waxa laga yaabaa wax kale oo ka mashquulin kara salaadoo kale inay jiraan waxa fiican qofku inuu mashquulka isdhaafiyo walow mar iyo labaha ka darsadee galan salaadii uu ku gaari laba ragcadood ragcada ugu dambaysaba ha ku gaari sida daraadeed baa rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam la salata bihadrati ta'amin salaadi ma jirto cunto aad jeclaysanayso oo lagu soo dhigay wala wa huwa yudafi'u al-akhbathan iyo labada xun qof ay eriyayaan salaad lagu ma labo rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiiska muslim baa saxiix ku wariyay